xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waji kale u yeelay qaraxii maanta magaalada Muqdisho lagula beegsaday laba xildhibaan oo hore isla markaana kamid ah odayaasha beesha Mudullood. xildhibaan mahad salaad oo qoraal soo dhigay Facebook ayaa muujiyay in qaraxan aysan ka dambeyn kooxda Al-Shabaab balse uu socdo beegsi ka dhan ah odayaasha beel gaar ah. mahad salaad ayaa sheegay inuu maalmo ka hor uu ka digay miinooyinka soo booda oo Muqdisho la soo dhoobay taasoo la doonayay in lagu sameeyo shirqoolo ka dhan ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne Farmaajo. wuxuu sheegay inuu mar labaad qaraabada uga digay inaan lagu leynin shaar Al-Shabaab isla markaana aan laga shaqeynin sidii loo dabargoyn lahaa sida uu hadalka u dhigay. duqooda Mudullood ee maanta miinada loo dhigay caafimaad degdeg ah Allaha siiyo maalmo ka hor ayay ahayd markaan idin sheegay miinooyinka soo booda in Muqdisho la soo dhoobay. waxaan mar kale ku celinayaa shaar Al-Shabaab inta la idin soo gashado iyaan la idin dabargoyn ee qaraabo hala isjiro ayuu mahad salaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri. qarax maanta oo ka dhacay agagaarka isgoyska Beexaani jidka u dhaxeeya Shibis iyo Kaaraan isla markaana ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday laba xildhibaan oo hore oo loogu kala magacaabo Muxidiin Xasan Afrax iyo Xuseen Caraale Caddaan. waxaa qaraxa ku geeriyooday 3 askari oo ilaalo u ahaa xildhibaan hore Muxidiin Xasan Afrax oo hadda ah nabadoon. waxaa dhaawac ka soo gaaray xildhibaan hore Xuseen Caraale Caddaan oo la dhigay isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho halka nabadoon Muxidiin Xasan Afrax uu dhaawiciisu ahaa mid aad u fudud oo lugta ka soo gaaray.